xubnaha guddiga qandaraasyada qaranka agaasimaha guud ee guddiga qandaraasyada qaranka dhammaan shaqaalaha hay-adda guddiga qandaraasyada qaranka marti sharafta mansab kasta iyo ciidan kasta ay leeyihiin ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn ilaahay baa mahad leh subxaanahu watacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi oo maanta halkaa ka dhacday juhdi iyo dadaal dheeraada geliyey hay-adda qandaraasyada qaranka aad iyo aadna mar labaad iyo mar saddexaadna madaxweynaha ugu mahad celinayaa mudanayaa iyo marwooyin iyo ogolaada inaan halkan magacyadooda ka sheego xubnihii guddiga qandaraasyada qaranka ee la soo shaqeeyey cabdillaahi ismaaciil cabdi giirre maxamuud aadan maal muuse faarax jaambiir cabdi faarax ducaale maxamuud baaracad diiriye cabdi jaamac caasha aad iyo aad baad u mahadsantihiin maalintii xilkana aanu la wareegay guddiga cusub waxaana lagu wareejiyey guddiga 3 gaadhi oo duuga wax gudmatiya haba yaraatoona lagu wareejiyey ma jiro maanta waa taa cagsigeedii ayaanu wareejinaynaa aan ka guddoomiye ahaan aan wareejinaynaa waxyaabaha noo qabsoomay muddada 4 sano ku dhow xeerka qandaraasyada qaranka oo uu madaxweynuhu nagala shaqeeyey oo la ansixiyey oo aanu ku shaqayno dhismaha xafiiska qandaraasyada qaranka oo qabyo aanu kula wareegnay oo madaxweynuhu noo qabyo tiray 6 xafiis oo gobollada aanu ku leenahay oo barasaabada gobollada nagu wareejiyey aanu rabno inaanu ka samayno xafiisyo qalabkoodii waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah siyaasadii qandaraasyada qaranka qorshihii 5 sano ee hay-adda qandaraasyada qaranka oo isaguna final un imanka ku dhow 6 gaadiida oo cusub shaqaalihii gobollada majority oo aanu shaqaalaysiinay annagoo u marnay nidaamka shaqaalaysiinta dalka waxaa xafiiska ka baxay 900 oo qandaraas oo xukuumaddu maalgelisay qandaraasyadaas waxay ka kooban yihiin dhismayaal gaadiid iyo qalabo kala duwan 900 qandaraas waxaan rabaa halkan aan ka xuso intii aan ka xusi karayo dhismaha hay-adda dhowrista tayada gobolka maroodijeer dhismaha shaybaarka hay-adda dhowrista ee gobolka saaxil dhismaha xarunta wasaaradda beeraha dhismaha madbacadda qaranka dhismaha wasaaradda waxbarashada dhismaha howlka hay-adda shaqaalaha aynu maanta dhex fadhino dhismaha howlgabka shaqaalaha dowladda dhismaha wasaaradda gaadiidka dhismaha maxkamadda rafcaanka gobolka maroodijeer dhismaha madaxtooyada gobolka sanaag dhismaha hay-adda kaydka raashinka dhismaha baanka caynaba dhismaha jeelka labaad ee hargeysa dhismaha garoonka baligubadle oo garoon cusub ah dhismaha garoonka roogooye dhismaha garoonka caynaba dhismaha garoonka burco oo roog la dhigay oo dib habeen lagu sameeyey dhismaha garoonka berbera oo isaguna lagu sameeyey roog la dhigay dhismaha garoonka ceeli gaabo oo isagana roog la dhigay waddada hargeysa kalabay oo halkaa mashruuc ayay naga caawisay dowladda jarmalka dhammaanta kale waa cashuurtii dadweynaha laga dhaaday 2 cisbitaal oo laga dhisay hargeysa 1 cisbitaal oo laga dhisay gobolka saraar degmada roog dhismaha hay-adda qandaraasyada qaranka oo la dhamaystiray dayactir 2 biriish ee burco dhismaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka togdheer xarunta dabdamiska gobolka sool degmada laascaanood dhismaha xeer ilaalinta gobolka sanaag dhismaha gudka qashinka ee gobolka sool degmada laascaanood waxaa la ballaariyey oo lagu tartamay cusbitaalada gobollada qaar ka mid ah gobolka awdal degmada boorame cusbitaalka boorame waa la ballaariyey cusbitaalka baligubadle cusbitaalka arabsiyo cusbitaalka burco cusbitaalka hargeysa cusbitaalka galcarab 6 cusbitaal dowladdu way ballaalisay oo waa lagu tartamay waxaa la dhisay
in ka badan 30 MCH oo laga kala dhisay gobolada dalka waxaa la soo iibiyey oo tartankoodii la bixiyey gaadiid iyo dawooyin loo qaybinayo isbitaalada gobolada maandhaye waxaa la dhisay in ka badan 30 dugsi oo lagu tartamay oo gobolada dalka laga dhisay jaamacadaha dalka waxaa qaadan la siiyey 7 jaamacadood oo ka mid ah dhismayaallo loo fuliyey Hargeysa, Burco, Sheekh, Sool, Sanaag, Galcadag intaa dowladdu maalgelin bay ku samaysay qaaray qaadan siisay iyo qaaray mashaariic u fulisay biyaha waxaa emergency lagu qoday 2 ceel oo degmada Boorama ah 1 ceel oo degmada Burco ah ceelal laga dhisay gobolka Maroodijeer gobolka Sool macdada loo soo iibiyey iyo qalab wadada Burco Ceerigaabo taariikhda markii ugu horeysay dowladdu waxay xooleysay dadkii xooluhu ka baxeen oo 2020 2021 labadaas sanada dadkii xooluhu ka baxeen waxaa loo sameeyey xoolayn haddii aan sidaa u sii wado salaada maqrib baa laynagu tukanayaa halkaasaan ku joojinayaa waxaasoo mashaariica cid ambiil guddida ka qaadatay haba yaraatay ma jirto taas oo ah sharaf qaranka Soomaaliland ku soo hoyatay aan guddida qandaraasyada qaranka oo quraan ahayn waxa qabatin doob afreed ah noo keenay 25 shirkadood 25kii 24 ka mid ah guddidu way qancisay oo way ku qanacday qabatinkii way la boqdeen shirkadaha tartamay kulli marka la tartamo nin shaqo wanaagsan iyo nin aan shaqo wanaagsanayn baa soo baxaya alxamdulillah shirkadihii 4 sano aanu qandaraasyada siinaynay waxaanu saruuro 2 shirkadood u bajaa 2 shirkadood waxaan leenahay shaqada iska soo hagaajiyay insha Allah ta'ala mashaariic aan shaqaano sidii ugu talagalay looma qaban waxaanu soo aragnay 2 mashruuc taas oo marka la eego qandaraasyada xafiiska ka baxay iyo 2 mashruuc aan hayso difference u dhaxeeya qandaraasyo lacagtooda la waayey ama yaraatee oo dowladda ku baaqatay ma jirto taasna waxaan u arkaa guul labaad kelmadda aan kaga baxayo waxa weeye Somaliland اعترافkeeda horumarkeeda midnimadeeda waxay ku jirtaa cadaalad alxamdulillah rabbil caalamiin madaxweynaha qaranku wuxuu ku fiirsaday waxaan madaxweynaha Afrikaan ku dhiiran qandaraasyadii uu codka ku raadin lahaa madaxweynuhu wuxuu dhigay banaanka muddadii 4 sano ku dhaweyd وما جوابي أو دب ما يرجع معارضة ما دام أنه أن قصور هاي أو سومالي أنا أردن أي مسؤولية نقص عني معارضة هذول صوت الفورة لكنها مكفر يسوسن ما دام أن قصور لكن ما أنت كلمة دراسة حساب أيام مسؤولية معارضة كان ورميا هذه الله كبيره مسؤولية معارضة هذه يوم وراء وحينه يوجه يوم من دراسة دونية أو ليس ستة Somaliland way ku yihiin nin hada iyo waayay habeenada waxaan xogayaa xisbiga wadani wuxuu yiri xukuumadda Somaliland hal mashruuc ma qaban waa waxa loola yaabo aad iyo aad ayaad u salaamatihiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh